kusoo dhawaada daawadayaal channelkeena African Somali Media. waxaynu milicsan doonaa barnaamijkeenii labaad ee ku saabsanaa taariikhda Soomaaliya iyo gumaystayaashii soo maray ee reer galbeedka ee guud ahaan gacanta ku hayay geeska Afrika. waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah Xasan Maxamed Xasan daawasho habboon. dhanka kale, French Soomaaliya waxaa xayiro xulafadii gumaysiga ay ku wada haysteen Afrika. 1942 maamulka maxalliga wuxuu u bedelay qaybtiisa badan dowladiisa Faransiiska xorta ah. intii u dhaxaysay 1948 ilaa 1950 xaaladdu waxay dib ugu laabanaysaa xuduudihii gumaystuhu ay dhigeen ee lagu heshiiyey sanadkii 1897. Itoobiya waxay gacanta ku haysaa ogaadeen iyo hawd. Faransiiska iyo Ingiriisku waxba kama bedelin sumadihii dhinaca Somaliland iyo Djibouti. sanadkii 1950 ayuu Talyaanigu kusoo rogaal celiyey Soomaaliya, iyagoo hoos imanayay wakiilka UN-ta oo ay ka go'an tahay inuu 10 sano gudahood dhulka koonfureed ee Soomaaliya gebi ahaanba ka kici doono. sanadkii 1960 gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaanigu labaduba waxay xorriyeysiiyeen British Somaliland waqooyi ah iyo Italian Soomaaliya oo dhanka koonfureed intii u dhaxaysay ilaa Juun iyo Julaay. siday u kala horreeyeen waxay go'aansadeen inay ku midoobaan Somaliland iyo Soomaaliya, jamhuuriyaddii loo odhan jiray Soomaaliya oo maanta loo yaqaano gebi ahaanba Soomaaliya. dhinaca kale, gumaysigii Faransiiska ahaa oo cagta ku sii hayay ka hor inta aysan madax bannaanida la soo noqonin jamhuuriyadda Djibouti 1977. Soomaaliya waxaa ka bilaabantay siyaasad hor oo loogu raadinayay dhulka loo Soomaaliyeed oo gacanta ugu jiray 3 dal oo kala duwan: Faransiiska, waqooyiga Kenya iyo Itoobiya. dhammaan dadka Soomaaliyeed oo kasoo horjeeday inay dal Soomaaliyeed weli gumaysi ku sii jiro ayaa hankooda iyo hiilkooda tusay gumaystayaashii. guuldarrada kasoo gaadhay in Soomaali galbeed wax horumar laga gaari waayo, arrintaa waxaa inta badan sabab u ahaa taageerada reer galbeedku ay la garab taagnaayeen Itoobiya iyo Kenya, taasoo sababtay in Soomaaliya ay ka raadsato midoogii Sofiyeeti kaalmo militari. si kastaba ha noqotee, dowladda Soomaaliya waxay hogaaminaysay inay si dhexdhexaad ah uga ahaato arrimaha caalamka intii lagu jiray 1960. xisbigii ku guuleystay doorashadii ugu horreysay jamhuuriyadda Soomaaliya 1969 ee loo soo gaabiyey SYL oo loola jeedo Somali Youth League, oo asal ahaan loo aasaasay inuu u ololeeyo xornimada iyo go'aansashada Soomaaliya. dhanka kale, British Somaliland waxay qayb ka ahayd doorashooyinkii ka dhacay Maarso bishii 3 1969. waxay xisbiga kusoo kordhisay baaxad aad u ballaaran. haddaba waxaa si dhaqso ah isku bedelay isla sanadka dhexdiisa bishii Oktoobar dhacda aad u la yaab badan. madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya oo loo adeegsaday nin boolis ah oo ka mid ahaa ilaalada madaxweynaha oo toogasho ku dilay xilli uu ku jiray socdaal dalka gudihiisa, halkaas oo ahaa ra'iisul wasaaruhu Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaar. dhowr maalmood kadib, xiisadda siyaasadeed oo sii ballaaranaysa ayaa waxaa xukunka la wareegay ciidanka militariga uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, waxaana xigtay inuu madaxweyne isku soo sharaxay uuna ku guuleystay inuu madaxweyne ka noqdo jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxweyne Siyaad oo soo saaray go'aamo adag oo ka mid tahay in wax qabiil la yiraahdo uusan jirin, qabiilkuna uu yahay ka burbur u keeni kara dowladda iyo shacabka. dhanka kale, Siyaad oo kasoo horjeeday dhul Soomaaliyeed oo gumaystu u haysto oo tilmaamaya gaar ahaan Soomaali galbeed, baaqna u diray reer galbeedka inuusan jirin wax gumaysiya gebi ahaanba dhulka dadka Soomaaliya. sanadkii 1977, iyadoo Itoobiya ay ku jirtay fawda iyo kacdoon markii uu dhacay Haile Selassie, ayaa Soomaaliya waxay weerar ku qaaday ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaali galbeed. ciidanka Soomaaliya oo guulo badan ka gaaray ciidanka Itoobiya kuna hareeraysan difaacna kaga jira magaalada Harar ayaa waxaa khiyaamo iyo damar lagu sameeyey madaxweyne Siyaad. xulafadii uu ka raadinayay kaalmo militari oo ah midoogii Sofiyeeti oo la saftay Itoobiya oo ka helaysay caawimaad xagga hubka ah iyo saanad militari midoogii Sofiyeeti. horaatankii 1987, ciidamada Itoobiya oo adeegsanaya qalabkii midoogii Sofiyeeti oo ay ku xoojinayaan ciidamo ka socday Kuuba waxay dib u qabsadeen ogaadeen. natiijadu waxay noqotay 100,000 kun oo qaxooti Soomaali ah oo aad u tiro badan oo ka qaxay xuduudaha Soomaaliya. waxaa ka bilaabmay Soomaaliya hogaamiye kooxeed kala duwan oo ku dhisan qabiilo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, taas oo ay ula jeedadu ahayd in laga tuuro xukuumadda cadaadiska ah ee Maxamed Siyaad Barre. markii la gaaray 1988, natiijadu waxay isku bedeshay dagaal sokeeye oo ka dhashay inqilaabkii Siyaad 1991. Siyaad wuxuu dib ugu noqday habkii ka soo jeedo oo uu ka noqday hogaamiye dagaal oo ka dhex muuqda
1991kii kooxihii ka dagaalamay waqooyiga dhulka Ingiriisku uu lahaa ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay jiritaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya. Macluushii ku baaday Soomaaliya 1992kii ilaa 1999kii iskahorimaadkii ayaa baabi'iyay dalagyadii iyo beerihii dalka Soomaaliya intii lagu jiray 1992kii waxayna keentay macluul baahsan. Cuntada ay soo daadgureynayeen hay'adaha caalamiga ayaa waxaa bililiqaystay maleeshiyaadka ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya markii la gaaray December 1992kii. Xaaladda waxaa soo farageliyay oo si firfircoon u soo gashay UN-ta iyadoo u soo dirtay dalka ciidan gaaraya 35,000 oo askari oo loogu magac daray howlgalka soo celinta rajada. UN-ta ayaa si kooban xaaladda u dejisay iyadoo ka dhaadhicisay 15 kooxood oo dagaalamaya inay ku shiraan Addis Ababa Janaayo 1993 si ay uga wada hadlaan nabadeynta iyo hubka dhigista kooxaha dagaalamaya. Waxayna u muuqataa markii ugu horreysay inay horumar sameeyeen, laakiin xaaladda dhulka ayaa kasii daraysa. Bishii Maarso 1994kii cutubyadii Maraykanka iyo Yurub ee ka tirsanaa ciidamada UN-ta ayaa ka baxay iyagoo u arkay heerka dhaawacyada kasoo gaadhaya mid aan la aqbali karin. Ciidamada ka socda dalka Afrika iyo kuwa ku teedsan Indiyaanka ayaa weli joogay. Intii lagu jiray 10kii sano ugu horeeyay xaaladdu way kasii xumaanaysay halkii ay ka fiicnaan lahayd. Laga soo bilaabo dabayaaqadii 1994kii caasimadda Muqdisho waxay u qaybsanay 2 awoodood kuwaasoo ugu awooda badnaa kooxaha ka dagaalamaya caasimadda Muqdisho. Mid walba oo hogaaminaya wuxuu ku dhawaaqayay inuu yahay madaxweynaha qaranka wuxuuna abaabulayay dowlad qaran. Bishii Maarso 1995kii ciidamadii hore ee UN-ta ayaa laga daadgureeyay xeebta. Dhammaadkii 10kii sano ee ugu dambeeyay laga soo bilaabo 1991kii ilaa 1999kii. Gobolka kaliya ee ka xasiloon waxay ahayd Jamhuuriyadda Gooniyo-sutaagga Somaliland Waqooyi Galbeed, waxayna dhigteen dastuur ku meel gaadh ah oo la soo bandhigay 1997kii. waxaana la doortay madaxweyne, laakiin jamhuuriyadda ayaa ilaa iyo hadda aan ahaynin inay ku guulaysato aqoonsi caalami ah. daawadayaal, intaa waxaa ku eg barnaamijkan qaybtiisa labaad. barnaamij la mid ah oo xiise leh intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. waxaan naga xasuusinaa haddaad nala joogtay waad ku mahadsantahay, haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo fadlan soo booqo channelkeena African Somali Media. mahadsanid.